أدرس أنا دوق مقالة مقدسو على بنا قرك أي وسيلة ذا ما عمل قبل كبنادر ما عمل كدقمة ياقشيد لما شعب كورتي تاجن ما أنت كقيبة والله أنا رافضها مقالة مقدسو كصدق وحنا دوق فرحسنا هاي أنا كسوق قيب قالوا كان مد نقدو dadka ku dhiirigeliyahayo magaalada in la nadiifiyo ay nadaafadu ma aan ceeb inaad hoosta gurigaaga nadiifsato ee dukaankaaga hortiisa nadiifsato ee baqaarkaaga hortiisa nadiifsato ee wadada hortaada maraysa nadiifiso waa wadaninimo waa maxay mas'uuliyad saaran qof kasta ee muwaadin ee Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada Muqdisho waa in nadaafada ka qayb qaadato nadaafadu magaalada waxay ku hagaagi kartaa kaliya in qof walba meeshii ku aadan subaxii markay hurdada ka kacdo wax yaal ay ka qaado wasada lagu soo daaray ay ka ilaaliso wadanimada dhamoo la sheegay in magaalada nadaafadeeda in maxay laga gubto amba laga shaqeeyo waa intaas dadka Soomaaliyeed ee gaar ahaan ku nool magaalada Muqdisho waxaan u baaqayaa nadaafadu waa iimaanka barkiis nadaafada ka qayb qaada maxay ahayd qayb ka naqda nadaafada amniga qayb ka naqda nabadgelyada qayb ka naqda wadankan waxa loo baahan yahay cid idii hagaajiyayso ma jirto dadaa waxay u qabaan wasaqdan meesha taal dad yimid inay intii yimaadeen ka qaadayaan habarteeday ka taa nadaafadaada gurigaaga hortiisana nadiifisada laga rabaa wasaqdeena banaanka dhigtada laga rabaa gobolka inuu dhaqaajiyo inaad u fududayso adaa laga rabaa ma ahan kaliya inaad badar ku cunto guriga waxaad ku cuntanaad ku soo daadayso guriga hortiisa ee meesha iska fadhiisato taas wadanka nadiif ku naqamaayo waxaan rabaa marka oo ku faraxsana inaan ka soo qayb galo ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ugu baaqo shacabka gobolka Banaadir ha ka qayb qaataan nadaafada amniga magaalada Muqdisho ha ka qayb qaataan horumarka dalka ha ka qayb qaataan gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan ugu hambaleeynayaa arinta cusub ee gobolka uu ka wado maxay ahayd igu sawirta aan ahayn sida daba u socoto waa ku amaanaya gudoomiye adiga iyo inta kala shaqeeyaysaba waa ku mahadsantihiin ciidamada ammaanka ayagana sidoo kale dadka Soomaaliyeed magaalada qof aan la sugaysiin male geedka hortaada ka baxayna iska goy gurigaagana nadiifso